marka hadda ninka ku xisaabtamay inuu heshiis intuu la galo gobol oo wadan ku qabsan karo waxba ka sikay maskax iyo aqli iyo xisaabtan lagu shaqeeyo loo baahay meesha aqlina ma jiro maskaxna ma jirto Somaliland gobolkii waqooyi oo Soomaaliya weeyaan shacabka deganaa meesha iyaga sheekadan markii la sheegay maanta ka gees ilaa ka gees waxay diyaar u yihiin in naftooda u furaan tahay waxaan cambaariyeenhaynaa una digahaynaa una sheegahaynaa midda iyada waxba kama faa'iidaystay haddaa tahay Ethiopia haddaa tahay Prime Minister Abiy Ahmed rajo badan baan ka qabnay ninka laakiin sidan hadda u dhaqday waxa weeyaan waa si yar oo carruurnimo ayay u dhaqdeen annaka waxaan ka hor imaadsanaa wax ama beentaynaya ama wax u dhimaya wada jirka aqoonsiga iyo wadanimada Soomaaliya Ethiopia Kenya iyo wadan kasta marka tan hadda maanta ku dhacday Soomaaliya waxay ku dhici kartaa wadan kale meel kasta qalaas baa ka jira isgafitaan baa ka jira way ka jiri jireen way ka jiraan hadda wayna ka dhici karaan marka tan aan leenahay waxa weeyaan walaalkeen Abiy dastuurka wadankaas ka jira waxa weeyaan cid kasta beel kasta ay ka tashan karaan oo wadanka bixi karaan waqtiga ay doonaan yani way ka reeyaysaa sidaan bay noqonaysaa waqti Afar bay ka jirtaa waqti Soomaalida bay ka jirtaa waqti kale waxay ka jirtaa Tigre mar Ahmara mar Ormiya sidaan bay wareegto u tahay marka ma dhici karto arrimaha oo ah xasaasiga wadankaas ku xisaabsan in lagu fuliyo arrimo kale oo wadan kale ka dhaca marka waxaan leenahay Abiy dadweynaha Soomaaliya xuduudkooda jiritaankooda aqoonsigooda mid bari ah maaha waa mid ay United Nations ay aqoonsanta waa mid ay aqoonsanta African Union waa mid ay aqoonsanta the Organization of the Islamic Conference waa mid ay aqoonsanta the Arab League waa mid ay aqoonsanta hadda the East African Community waa mid ay aqoonsiin wadamaha dhan oo jiraan kala marka team wax meel uga dhici annaka madaxda daan ahni Kenyan aan ahni ma ogolaan karna waxaan ku leenahay arintaas waa mid qalad ah aan leenahay madaxweynaha wadanka Kenya waxaan ka codsanaynaa madaxweynaha wadanka Kenya mudane Dr. William Samoei Ruto inuu sida ugu dhaqso badan shir degdeg ah oo igaadhu u yeera arrimaha Ethiopia hadda ay ka soo binaysa Soomaaliyana ajena laga dhiga loogana hadla si dib looga noqon lahayna tala looga gaara taa waxaan u maleynaa waxay ku jirtaa nabadgelyada Kenya nabadgelyada regionka dhan iyo nabadgelyada Afrika iyo adduunka dhan mana doonayna qalalaas cusub oo hadda waqtigan 2024 ka furtay regionka waqtigan uu heshiiskan asaga beenbeenta la sameeyo waa waqti xun oo loola jeedo jiritaanka Soomaalida inaysan soconin maxay oo waqti aan isdheeynay dawladda Soomaaliya kor ay u kacday aftiinayna leedahay waa waqti wadanka Soomaaliya lagu soo diray East Africa Community waa waqti laga qaaday cunaqabateen hubeed wadanka Soomaaliya waa waqti deemaha laga daayo wadanka Soomaaliya waa waqti annaga jinsiyadda Soomaali ama ummadda Soomaaliyeed ama nasabka Soomaaliyeed aan lahayn fursad iyo iftiin baa ka dhashay dadka Soomaaliya waxaad maleynaysaa cadawga horaan jiray inuu soo noqday oo gadaal u celin rabo ummadda Soomaaliyeed oo raba qalaasay qowcin hadana meesha ka dhalay waxaan leenahay dawladda Ethiopia waad ku qaldantiin asaga arinta ayaga waxaan leenahay ujeedada aawadatiin waa ujeedada xun mana ogolin annaga hadaan nahay dadka reer Northeastern mana inuu raacin arinta ayada